ka ayaa kulankii ugu dheeraa oo ay yeeshaan Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya iyo Uhuru Kenyatta madaxweynaha Kenya waxaana diiradda lagu saarayay arrimo ay kamid yihiin dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Kenya isu socodka dhanka duulimaadyada ee labada dal geedi socodka qaranka Soomaaliya iyo amniga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in dawladdiisa ay ka go'an tahay dib u celinta qaxootiga si ay uga qayb qaataan dib u dhiska dalkooda Soomaaliya hase yeeshee dib u celinta qaxootiga waa in ay noqotaa ayuu yiri mid hab wanaagsan loo maro oo aan qasab lagu celin qaxootiga sida uu dhigayo heshiis saddex geesood ah oo ay horay u wada dalalka Kenya Soomaaliya iyo hay'adda qaxootiga caalamka ee UNHCR sidoo kale waxa labada madaxweyne ay isku raaceen in si wada jira dalalka Soomaaliya iyo Kenya ay uga shaqeeyaan dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu uga mahad celiyay madaxweynaha Kenya martigelinta qaxootiga Soomaaliyeed muddada 25 sano waxaana qaxootiga uu ka rajeeyay in ay dhowraan sharciyada u yaala dalkani Kenya labada hogaamiye waxyaabaha ay ka wada hadleen waxa kamid ah doorka ciidamada AMISOM ay ka qaateen nabadeynta Soomaaliya iyo iskaashiga kala dhaxeeya ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Kenya kuwa qaranka Soomaaliya isbeddelka wanaagsan ee siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa la amaanay iyo in Soomaaliya laga taageero isbeddelka wanaagsan ee dhanka siyaasadda ee Soomaaliya ayaa lagu amaanay warmurtiyeedka waxaana sidoo kale lagu sheegay in la taageero Soomaaliya si xasilooni ay u gaarto iyadoo doorashooyinka soo socda ee Soomaaliya ay aas-aas u noqon doonaan horumar Soomaaliya ku tallaabsato arrimaha duulimaadyada ee u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa la sheegay in wax laga bedeli doono maadaama dhibaatooyin badan ay ku qabaan dadka ka soo safra dalka Soomaaliya sidoo kale labada madaxweyne waxa isla soo qaadeen in si wada jira ay uga shaqeeyaan Soomaaliya iyo Kenya arrimaha ammaanka ganacsiga maalgashiga caafimaadka waxbarashada ciyaaraha dhalinyarada dhaqanka iyo isgaarsiinta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu casuumaad u fidiyay dhigiisa Kenya in Soomaaliya uu yimaado mustaqbalka dhow waxaana madaxweynaha Soomaaliya uu soo gabagabeeyay booqasho 3 maalin qaadatay oo ka soo bilaabatay Xasan Sheekh Umar Universal TV